golaha musharaxiinta mucaaradka ayaa waxay sheegeen in beriyo jimcaha ay sameyn doonaan mar kale mudaharaad aad iyo aad u weyn kaasoo ku soo bandhigi doonaan cabashadooda iyo mowqifkooda ku aadan doorashada dib u dhaca ku yimid halka dowladda ay la shalay tiri ma dhici karo mudaharaad mana loo ogolo inuu ka dhaco Soomaaliya ama Muqdisho sababtoo ah waxay sheegeen in caabuqa coronavirus uu aad iyo aad ugu soo bato Soomaaliya dad badanna uu leenayo haddaba walaalo daawade meel walba caalamka joogtid yaa saxsan dowladda iyo mucaaradka yaa si khaldan waxaan su'aashan jawaabteeda iisoo bandhigna idinka sidoo kale waxaan ka jawaabi doonaa aakhirka fiidiyoga balse aan ku bilaabo marka hore mucaaradka waxay cuskanayaan qodob dastuuri ah qodobkan oo leh qof kasta wuxuu xaq u leeyahay in uu abaabulo kana qayb galo kulamo ama banaanbax oo si xasilooni ah cabasho loogu muujinayo iyada oo aan ogolaansho loo baahnayn waa qodobka 20aad ee dastuurka Soomaaliya qodobkan ayay mucaaradka qaasatan musharaxiintooda cuskanayaan oo waxay leeyihiin xaq ayaa u leenahay inaan mudaharaadno waayo constitutionka Soomaaliya dastuurka Soomaaliya ayaa inoo qoraya waana lama taabtaan cid ka hor imaan kartana male halka dowladda ay leedahay maya caabuqa coronavirus dartiis ma mudaharaadi kartaan oo aan ahayn qodob dastuuri ah haddaba waxaa looga baahan yahay mucaaradka in ay la imaadaan haddii ay ka dhab yahay qodobkan ee daacadna ay ka tahay in mudaharaad xaq way u leeyihiin in ay mudaharaad nabad ah xasilooni ah aysan taayaro ku burburinaynin waddanka ku burburinaynin ciidamo badan oo dabaabada ah la soo bixaynin villa Soomaaliya ka boodaynin dhehaynin dowlad kama jirto annaga dowlad ah madaxweyne ay meeshaas ku cilaaminaynin ama afgembi haddaysan suubinaynin xaq ayay u leeyihiin inay mudaharaadaan shucuurtooda iyo fikirkoodana soo bandhigtaan waxaa looga baahan yahay mucaaradku in banaanbaxay suubinayaan ama iclaamiyaan inay jimcaha suubinayaan in uusan noqon kii tookadii hore oo 19 iyo 18 habeenkii qaasatan 18 dhacay markii janaain dhacday oo amnigu u qaabilsan uu daldirka daasan inta yimaada ciidankayga haysto aniga waddanka xukumo madaxweyne farmaajo waxa loo malaha dowladda way fashilmantay way dhacday amniga waddanka ana ka taliyo halka ereygaas yiri daraadada ay dowladda cuskatay ee ku diiday in mudaharaad uu dhaco waana sababta keentay inuu isku dhici yimaado February 19 maalintii ahayd jimcaha xasan cali khayre ra'iisul wasaare hore Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayagoo mudaharaadayo markay checkpoint-ga imaadeen isxabadayeen labada ciidankii ilaalinayay ciidankii mataqaanaa joogay ee gorgor ee checkpoint-ga joogay waa inay ka fogaadaan mucaaradka in dhacdo kale oo lagu yaqaanin mataqaana woolod ahaan jiray labadan uma Soomaaliya soo laayay hadda ka horna yiri Addis Ababa ayaan ku tukanaynaa waagi mataqaana maxaakiimta ka bacdi xaj bayana iska aaday oo waddanka ka haajiray ninkaas ayaga waa inay ka fogaadaan hadaladu ka fogaadaan inay soo kaxaysan woolod laakiin ay soo kaxaysan ilaala yar oo ilaalisa maadaama waddanka wali al-shabaab ka jiro xaq ayay u leeyihiin inay ilaala soo kaxaystaan dowladana xaq ayay u leedahay inay madaxdii hore iyo mucaaradka iyo shacabkaba ay ilaaliso mucaaradka waxaan ka sugaynaa haddii arrinkaas dhab ka tahay banaanbaxna doo inay keenaan waana inay joojiyaan provocation wordska hadallada ka soo yeeraya oo dhahayo farmaajo waddanka madaxweyne kama aha dowladdiisu way dhacday waa inaan bedelnaa ama cid kale aan keenaa maya sida ogtihiin dastuurka Soomaaliya qaasatan qodobka September 17 markii la mariyay baarlamaanka Soomaaliya wuxuu sheegayaa ilaa dowladdan bedesho madaxweyne bedel la helayo farmaajo iyo madaxweynaha baarlamaankana meeshiisa sii jiraya ra'iisul wasaaraha waddanka Roblaka ah dowlad ayaa dowlad bedesha waa ogtihiin hadda ka hor way dhacday xasan sheekh xiligiisa ku dhacday 6 bilood loogu daray waxa ku dhacday xilligii Sheekh Shariif hal sano ayaa loogu daray waxaa looga baahan yahay mucaaradka inay gorsadaan shalay ayaga soo suubiyo ku darshadadan haddana inay u ogolaadaan farmaajo maadaama uu qodob dastuuri ah uu leeyahay baarlamaanka ayaa ansixiyay September 17 waddankan wali waxa madaxweyne ka asaga ilaa doorasho lagu bedelo waxaan u leexanayaa dhinaca dowladda waxaa looga baahan yahay waddanka waa waddan dimuqraadi ma aha waddanka authoritarian government ah sida wadamada Carbeed iyo Sacuudiga oo kala ama North Korea oo kala ah oo shacabkooda caburiyo siyaasiyiintooda caburiyo dilo una ogolaan inay mudaharaadaan waddanka dimuqraadi yahay dastuurkana uu sheegayo qodobka 20aad
in ay la mudaharaadi karo si nabad ah inay u oggolaadaan siyaasiyiinta iyo taageerayaashooda inay si nabad ah u mudaharaadaan shucuurtoodana u soo bandhigaan fikirkoodana ay soo miiska keenaan ma ahase inay jidgooyo suubiyaan diidaan lama mudaharaadi karo dhahaan COVID-19 jira daraadiisna lama mudaharaadi karo inay hadalladaas u dhahaan maaha hadalladaas waa hadallada dowladaha kaligistaliska ah ama dowladaha mataqaanaa aan democratic ahayn dowladdeena waa dowlad dimuqraadi ah fadlan dowladda Soomaaliya madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Roble waa inay ilaaliyaan dastuurka Soomaaliya waana inaysan ku tuman dastuurka Soomaaliya oo oggolaadaan mucaaradka COVID-19 wax ma joojin karo tusaale ahaan ay siiyo xilligii COVID-19 lockdown ugu xumaa Mareykan meel walba waxa ka dhacay doorasho looga soo horjeedo dowladda iyo booliiska Mareykanka George Floyd iyo madaxweyne Trump looga soo horjeedo caalamka dhan uu ku faafay kadib markii si arxan daraa saddex askar oo cadaan ah ay u dileen George Floyd oo qoorta ugu istaageen caalamka COVID-19 ka jiro lockdown ku jira dadka mudaharaadayeen wadamada dimuqraadiga ama dheer dadka mudaharaadina laakiin ma aha dowladda Soomaaliya inay sidaan oo kale u hadasho ma aha waa laga fiican yahay madaxweyne Farmaajo oo ka yimid wadan reer galbeeda xadaarad dimuqraadi ah sidoo kale Roble oo ka yimid wadan Sweden oo Scandinavian yaqaan dimuqraadi faa'iido leedahay iyo waxay tahay inuu caburiyaan siyaasiyiinta ka soo horjeedo sidoo kale waxa loo baahan yahay Farmaajo inuu garoosado siyaasiyiinta oo seento shalay ka raayay ama qaabkii xukunka keenay markuu ra'iisul wasaare ka dhigay markuu raayay habeenkii February garbaha ka istaagay kor u qaaday waa in uu oggolaadaa inay la tartamaan doorasho xalaal ah uu qabto kuna qanacsan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka idil iyo xataa ra'iisul wasaarihiisii hore ma aha laakiin waxa lagu eedeynayo waa inuu ka tanaasulaa waa inuu direct contact la suubiyaa siyaasiyiinta mucaaradka la heshiiyaa isna afgartaan taas ayaa xal lagu gaari karaa wadankeena dagaal loogu ka dhaco sidii aan u laabano 90-koodii waa ogtihiin 30 sano wadankeena burburay midaas ayayna tahay inaan dhamaanteen aan diidno inuu wadankeena dulmi siyaasiyiin is afgaran weyso inuu ka dhaco waxaa looga baahan yahay dowladda xirfad inay la imaado xirfadtii hore ka duwan kuna qanciso siyaasiyiinta mucaaradka doorasho xalaal ahna ay suubiso waxaan ku soo afjarayaa video kuna soo gunaanadaya su'aashii aan ku bilaabay yaa saxsan yaana qaldan dowladda iyo mucaaradka doorasho xalaal ah mudaharaad sax ah oo nabdoon way dhacaysaa waana inay dhacdaa haday soo bandhigayaan mucaaradka si nabdoon ayagoo burburinaynin guryaha duminaynin hantida dhacaynin dowladda afgambinaynin waana inaysan la imaamin dubaabado iyo ciidan fara badan oo wolo dhiswato laakiin ayaga ay taageerashooda soo baxaan dowladda waxaa looga baahan yahay in aysan qaldamin jidadka xirin dadka caburinin joojinin xabado ku furin sidii ra'iisul wasaaraha iyo Umar Cabdiraxmaan Cabshukuur oo fureen sidoo kale mucaaradku waxaa looga baahan yahay toqodana ee suubiyaa ma February 19 inuu hoobiyo ku ridaan airportka ma aha mudaharaad ma aha tas mudaharaad ma aha waxa weeye afgambi ama qalaasin wadan ka dhaco hadana shacabka Soomaaliyeed marrabna wadankeena meel walbaan joogno inuu qalaaso ka dhaco maalinta jimcada indhaheena dhan waxay joogaan Muqdisho fiirsanayaan oo yaraan 50 milyan oo Soomaali ah shanta Soomaali joogto ayaa fiirsanayso waxa dhici doona maalintaas waxaa looga baahan yahay siyaasiyiinta in aqli adeegsadaan inay maskax adeegsadaan in aysan isku dirin wadamo shisheeye in aysan u sheekeen siyaasiyiin ajaanib ah wadanka waxaa iska leh Soomaali dhamaanteena anaga leh waa inay isku tanaasulnaa ma aha waxyaan raba kaliya ayaa xoog ku marsiinayaan midaan deedi ay yeelina ma hadana shacabka Soomaaliyeed muxaafid aan nahay iyo mucaarad hadaan nahay waa inay labada kooxood isku yimaadaan iskuna tanaasulaan wadankana doorasho xalaal u dareeriyaan taas ayaa lagu kala amni gari karaa taas ayaan uga baaqsan karnaa mar kale in 90-koodii aan u laabano iyo qaxar leh wadankeenana nugula maadeyso oo dadka ama is xukumi karaan hala googooyo damaca xun ee ka jiro wadanka Kenya male Imaaraat male Qatar male Ethiopia male annaga siyaasiyiinteeno ama muxaafid ahaaw oo sida mataqaana Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaare Roble ahaaw iyo dowladda dhamaan wasiirada ku jira ahaaw ama mucaarad ahaada sida Xasan Sheekh Shariif ra'iisul wasaare Xasan Ali Khayre Cabdiraxmaan Cabshukuur daahir geli iyo dhamaan inta kale fadlan isku tanaasulo wadanka badbaadiya wadanka wuxuu idinka waxa idin eeganayo dhamaan mustaqbalkeena jiilkan dhalnay
jiilka mustaqbalkooda ku dhumay kuwa soo socda ayaa wadanka eeganaya isku tanaasulo oo taxadar muujiyo oo hadallada xun ad media isku marinaysiin dhamaan joojiyo fadlan walaal maxay kula tahay yaa saxsan yaa saqaldan mudaharaad xalaal oo sax ah inuu dhaco ma saxba mise waa qalad covid-19 ee dawladda ku marmarsiyooto daraadeed ma dhici karo mudaharaad ma saxba mise waa qalad fadlan fikirkaaga ka dhiibo fikirkaaga saliimka adoo isdheheenin waxaan la jiraa muxaafid ama mucaarad ayaan la jiraa ama muxaafid ayaa mucaarad ah taas meel iska dhig u danqa dalkaaga fikirkaaga saliimkana dhiibo walaalkii maxamed faarax oo idin socodsiinay waxaan rajeynayaa bariyo jimcaha taariikhdu tahay bisha 26 2021 in muqdisho ay ka dhacaan mudaharaad nabad ah dawladda siyaasiyiinteeda ugu waaweyn iyo mucaaradkan ay is afgartaan wadankana ay ka baajiyaan dhiig ku dhaato ma rabno mudaharaad rabshad wado ma rabno siyaasiyiinta fikirka duwan in la caburiyo waxaan rabnaa Soomaali oo wada hadasho qof walba fikirkiisa dhiibta si nabdoonna lagu kala baxo lama santiin